caawa insha allahu tacaala waxaynu isdul taagi doonaa dariiqa labaad oo ah in qofka bini aadmiga ahi uu isagu xuduuddii ka tallaabo qofka bini aadmiga inuu xuduuddii ilaahay u dhigay uu ka tallaabo biariiqatin aw biukhraa waxaynu isla soo waafaqnay oo culimmada ahlulcilmigiihi ay dhammaantood isla qaateen in xidhiidh gogoleed dhici karo laakiin xukumkiisa way isku khilaafeen bacduhum waxayna yidhaahdeen sinaba xalaal uma aha in xidhiidh gogoleed uu dhex maro jinka iyo insiga bacdina waxay yidhaahdeen waa makruuh bacdina waxay yidhaahdeen waa mubaax masalada ay sidaa u dhigayaan waxa weeyaan marka bini aadmigu ay xuduuddooda ka tallaabaan laakiin qofka haddii lasoo daandansado waa mujbarun waa qof la qasbayo oo aan awooddiisa iyo ikhtiyaarkiisa waxaan ku samaynayn hadday awooddiisa ka baxsan tahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala u qabsan maayo wama stukriha calayhim wixii lagu istikraaho oo lagu qasbo ummatu muxamed looma qabsado waana khawaa'ista ay ummatu muxamed leedahay ruuxa bini aadmiga ee muslimkaa wixii lagu qasbo inaan ilaahay kula xisaabtamayn inay culimmada dhammaantood ay aaminsan yihiin ama ay ku tegeen in xidhiidh gogoleed uu dhex mari karo waxaynu ka fahmaynaa axkaamta ay ka qaateen oo ay leeyihiin waa xaaraan waa karaahiyo waa mubaax shay aan macquul ahayn oon ixtimaali karaynin xukun lagama dejiyo maalan culimmada islaamku isma weydiiyaan qofka ma u bannaanta inuu malaa'ig noqdo ma xaaraanba ma xalaalba ma jaa'isba kama hadlaan sababta waaba dee waxaan suurtagal ahayn marka inay masaladani agtooda suurtagal ka tahay waxaan ka fahmaynaa axkaamta shareecada ay ku dureeriyeen haddaba kii isaga la qasbay asbaabta ay kula xidhiidhaan waan ka soo hadalnay midkan qofka bini aadmiga isagu uu dilaacinayo xaajiskii iyo dayrkii u dhaxeeyey thaqalaynka saddex siyood midunbuu ku yimaadaa midi waa mid aa wada maqasheen oo taqaaniin waa midka ay yidhaahdaan saarka ama mingiska ama booranaha oo gobol walbaaba magaca u yaqaaniin saarku waa nooc lagula xidhiidho shayaadiintaasu waxay qofka bini aadmiga kala soo xidhiidhaan xagga tafiirta ama qof bini aadmiya oo intuu jinku galay loo geeyey qof aan shareecada ilaahay wax ku dawaynaynin dabadeedna laga ballamiyo oo la odhanayo hadday gabarh tahay inta wax loo qalo calafkeeda la suga markaa la guursado ayay ku imanayaan inta kalena way ku qarsoonaanayaan waxay meesha ku joogaanna waxa weeye laaluushkaa hore ee la siiyey ee baatilka ah iyo xoolaha loo qalay markaa calafkeedu yimaado ayay dabadeedna soo gelayaan ama ay bilaabayaan inay dhibaatooyin ay muujiyaan ayagoo raba in wax loo qalqalo oo dhiig la marmariyo oo xaaraan lagu dhaxo waxaad maqlaysaa ayayday baa lahaan jirtay deedna ayayday baa igu soo wareejisay waxaa la samaynayaa marka laga ballaminayo ballanka loo qabanayo xoolaa la qalqalayaa waxaana loo qalayaa shayaadiinta dabadeedna waxaa lagu casuumayaa dad kale haween kalaa loo yeedhayaa oo aan xanuunkaba qabin neefkii la qalay ama labadii neefee la qalay ee loo qalay saarkiiyo jimanka ayaa hilibkoodii la siinayaa markay hilibkaa cunaan awooddoodii difaaca ayaa meesha ka baxaysa halkii malaa'igtu ay joogtayna shayaadiin baa soo gelaysa sababta oo ah hilib
aan ilaahay xalaalayn bay cuneen wamaa uhilla ligayri illaahi bihi deedna aqalkii baa la soo gelayaa gabadhii calaqadda la odhanayay ee iyadu barmoostay ee ay iyadu adeegsanayeen ayaa meesha imanaysa calaqadda waxa weeye waa ruux intaasoo jeer saarka laga tumay oy markii dambe ka dhigteen darmaan waxay u yaqaaneen tan ay adeegsadaan ee afgaranaysa darmaan bay yidhaahdaan darmaantaasi marka dadku ay isu yimaadaan ee hilbaha xaaraanta alla cuno ayaa waxay dalbanaysaa ciidankii jinka hadallada inta badan aa maqasheen ay ku dalbadaan waxaa ka mid ah saarow awoowow soo deg timashaashlihiiyow soo deg iyo hadallo la mid ah oo qaarkood marka dambe shirkiyaad ay gelayaan hadhowna waxbaa la garaacayaa kelimaad shirkiya baa lagu dhawaaqayaa wixii meesha joogay ee hilibka xaaraanta cunay badankoodu way daadanayaan tii iyada si gaara looga tumayay way ka degayaan kuwanna waxaa la leeyahay jimanbaa qabi jirteen oo idinku qarsoonaa oo idinkaa daatay markaa sanadka soo socda ayaa idinkana la ydinka tumayaa halkaasay kala xidhiidhayaan mar afraadka waxay noqonaysaa gabadhaa mar afraadka laga tumo inay noqoto ooriyaadka jinka waxaa toos ula xidhiidhi doona shayaadiinta aqalkeeda iyo furaashka ninkeeda kuma raaxaysan karayso haddii habeen ay noqoto uu sawjkeedu yimaadana xanuun ka bixi mayso inta ay kelidee tahayna waa mabsuud habeenkii markay seexatana waa loo imanayaa sidaasaa markaa saarku uu ku faafaa oo marba nimaan jinniye qabin baa lagu casuuma meesha saarka lagu tumayo dabadeedna sidaasay ku daata haddii carruurta yaryar la geeyo meesha saarka lagu tumayo iyaguna waxay noqdaan dad abhaliyiina oo bilaa caqliya oo aan maskaxdoodu korin meelaha saarka lagu tumayo marka carruurta aan qaangaadhka ahayn la geeyo maskaxdoodaa dhaawacanta garashadooduna way hoos bay u dhacdaa aqoontii waxbarashadana way ka habsaamaan marka ama saar u bixi ama mingisba dheh ama booranaba dhahoo dariiqaa wixii ay kula xidhiidhaan shayaadiintu way guursadaan noloshoodana way marka dambe iyagaa dila oo marba waxbaa laga qaadaa waxbaa yacni ay u ballamiyaan ama dhar cascas meel ha loo dhigo ama furcadda meel ha loo dhigo ama waxyaalo la shito jaawi iyo wax la mida meel ha loogu shido aduu waxa weeyaanu kharash joogto ah fii kulli sana ama fii kulli 6 shuhuur 6 biloodba mar ayaa waxaa la rabaa lacag qadar ah oo reerka maxaanku rahaa ducafadii aanay ka dandhanayn in la isticmaalo oo xoola lagu qalqalo marka ay u gaadho waxaa la samaynayaa meelaha qaarkood jarikaan dhan oo maxaanku rahaa subag ah oo sixin ah ayaa la soo dhalaalinayaa haweenka saarka imanayana dhammaantood diricyo isku wada midaba baa loo gelinayaa deedna waa la fadhiisinayaa subagkii oo la dhalaaliyey oo aan kululayn baa dhammaan madaxa looga wada shubayaa dhammaantood iyagoo subagii da'aya ayaa dabadeedna hawshii la bilaabayaa qaarkood raashinkaa lagu fadhiisiyaa raashin bisil baa la odhanayaa ku fadhiista waxaasoo dhanna waxa weeyaan waa israaf weeye waa ibdaar ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiini wa kaana ashaytaanu lirabbihi kafuura mararka qaarkood raashin baa la karinayaa bariis cad baa la karinayaa markaasaa la odhanayaa bannaanka ha lagu daadiyo intaasoo keliya oo ifsaadka ah ayaa meesha ay ka baxaysaa barakadii ilaahay iyo malaa'igtu dabadeedna waxaa soo gelaya caalam aljinni washayaaiin marka waxay doonaan bay halkaa ka fushadaan gobolkeennan aynu joogno waxaa aada looga isticmaali jiray saarka weliba nooca ay yidhaahdaan saar xabashiga ayaa ugu howl badnaa oo mucaqad ah oo xataa marka la istidhaahdo qofka shareecada iyo qur-aanka ku cilaajiya waa jin caniid ah oo noocan ay yidhahdaan fiquburaalaha waxa weeyaan waa qabiil jinka ka mid ah oo diinta yahuudda haysta fiquburaala haddaad maqasho waa maxaanku dhaha jinka gobolladeennan ayaa ka howlgala fiquburaala la yidhaahdaa waa qabiil dhan oo jin ah oo laakiin diinta yahuudday haystaan
waxaanay ku isticmaalaan inay yani la xidhiidhaan ciddii saarka lagu tumayo wixii la mid ah qaabkaa horta bini aadmigu uu ku daandaansadaa jinka meelaha saarka laga tumayo bay tagaan markaasay halkaa ka soo raacaan qayb labaad baa jirta oo bini aadmigu ay uga gudbaan xuduudda waa qaybta la yidhaahdo taxdiir alarwaax wa muluuk uljaan taxdiir alarwaax wa muluuk uljaan waa nidaam dhan oo imika haddii aad eegtaan internetada aad baa loogu faafiyaa way ka buuxdaa waana nooc iqraa' baa ku jira oo dhallinyarada waa loo sakhirayaa inta badanna waxaa la odhanayaa haddii maxaanku idhaa aada biil weyday maxaanku idhaa sallad lagu daba qaado kugu yani kalifaya waxaan kuu haynaa guur wacan oo bilaa kharasha oo wax allaaliya wax hawlihi aanay kaa gaadhayn adaaba lagu fangaraynaya maxaan sameeyaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasaad samaynaysaa dabadeedna waxaa kugu soo xidhmaya caalamka sidaa iyo sidaas qofkii markaa tallaabooyinkii la yidhi qaad buu qaadayaa dabeedna waxbaa u iman doonaa hal miaal baan soo qaadanaynaa oo ah taxdiir banaati iljin haweenka iyo hablaha jinka sidee loola xidhiidhi karaa ee loo soo xaadirinayaa waxay ku odhanayaan hiya jinniyatun min binti almuluuki asabca waxay leeyihiin waxaan kuu guurinaynaa inan ay dhaleen 7 boqor ee ugu waaweyna jinka mid ka mid a ayaan kuu dalbaynaa haddaba idaa aradta ixdaaraha markaad damacdo inay timaaddo oo aad itisaal iyo xidhiidh la samayso tasuumu lilaahi 12 yowman waad soomaysaa 12 maalmood 12 maalmood baad ilaahay dartii u soomaysaa ilaahay dartiidaas waa lagugu qaldayaa waayo hadhow waxaad ku afurayso iyo waxaad aqriyayso oo dhan baa shirkiyaada kelimaadka lagu fari doono ee casaa'imta la yidhaahdo ayaa shirkiyaad ah shirkiyaadkaas iyo islaamkuna meel ma wada degi karaan marka hore waxaa lagu leeyahay 12 maalmood baad soomaysaa qaarkoodna 20 maalmood bay ka dhigi qaar 40 maalmood bay ka dhigi qaar 60 maalmood bay ka dhigayaan waa nooca marka riyaadiyaadku uu qaybsamo oo qaabkan loola xidhiidho caalam aljinka waxay u yaqaaneen nimanka sixiroolayaashii marka caalamkaa la rabo in xidhiidh lala sameeyo taqashufaadkan iyo cibaadaadkan iyo waxaan la aqriyayo riyaadiyaad bay yidhaahdaan riyaadiyaad ereygaasay isticmaalaan marka riyaadiyaadku ma aha xisaabtii ama ma aha jimicsigii aad taqaaneen riyaadiyaad haddaad maqasho waa erey ay isticmaalaan saxaradu waana qaab loola xidhiidho shayaadiinta wuxuu ku odhanayaa markaa riyaadiyaad baa lagaa rabaa riyaadiyaadkaagaasi markaa intay dherer la eg tahay baa quwadda shaydaanka kula xidhiidhayaana uu la eg yahay oo haddii shaydaanka aad doonaysa inuu aad la xidhiidhaa uu qawi noqdo waxaa laguu dirayaa riyaadiyaad qawi ah oo ilaa iyo 4 bilood qaarkood ay noqonayaan haddii aad doonayso licsaqiirna waxaa laguu dirayaa riyaadiyaad 7 maalmood 5 maalmood wax inkaasa ayaa laguu dirayaa marka wuxuu ku yidhi waxaad soomaysaa 12 maalmood waa kow waxaa lagaa rabaa buu ku yidhi inaad tagto meel mawdac khaalin baciidin can ilaswaati waalacmaar meel aan sanqadh lahayn oo uumiyaba ka dhoweyn sanku neeflo bini aadmi aanu ka dhoweyn baad aadaysaa 12 maalmood markaad afuraysana canjeero ka samaysan shaciir waa heed baa lagu ogol yahay wax oon xoolaada laguma ogola afkaa saari maysid waxaad ku darsanaysaa geedka cuudka la yidhaahdo saliid lagu shiilay ayuunbaad ku darsanaysaa intaasaa nafaqo ku noqonaysa maalin kastana inaad maydhataa lagaa rabaa maalin kastana inaad shidato waxyaalahan la shito ama ha ahaato jaawi ama wax la mid ha ahaatee inaad isa sii diyaarso maalin walba aad maydhato aad shidato jaawi baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa markaa inaad salaad kastoo tukato inaad casaa'imtan aad aqrido markaad salaaddii ka baxdo
cazaa'imtanaad aqriyaysaa caziimo waxaa la yidhaahdaa waa erayo ay isticmaalaan sixiroolayaashu wax kasta oo kelmado lagu dhawaaqayo ama shirkiyaad ha ahaadaan ama macsiyaba ha ku sal lahaadaan ama iqaasati lghayr illaahi haba ku sal lahaadaan ama aflagaado ilaahay iyo rasuulkiisa la aflagaadaynaya ha ku shaqo lahaadaane waa erayo koodh baynu nidhaahnaa waa afgarasho makhluuqan kula nooree qariinkaaga ayaa wuxuu la itisaalayaa caalamkaad adigu dalbanayso buu la itisaalayaa wuxuu leeyahay fulaan binu fulaan wuxuu rabaa inuu xeradeenna soo galo wuxuuna rabaa inuu maxaanku idhaahdaa departmentka caynkaa iyo caynkaas inuu la xidhiidhuu rabaa sidii baa markaa dalab lagu keenayaa casaa'im baa la yidhaahdaayo waxyaalo shirkiyaada weeyaan oo markaynu baabu sixirka gallo ayaynu miisaallo dhowra ka soo qaadan doonaa waxaa kaloo jira wax la yidhaha talaasim baa lagu jamciyaa iyadoo waa wixii qoraal ku shaqale hadday wax sixirku qoraal uu yahay oo in badan aad aragteen waxyaalo afargeesya ah iyo waxyaalo wareegsan oo wax ku qorqoran yihiin waxyaalahaas oo sixir loo adeegsado ayaa waxaa la yidhaahdaa talaasim kelimaadka la aqriyayana waxaa la yidhahdaa casaa'im marka hadda wax talaasima maanta la isticmaali maayo waxaa la isticmaalayaa waa casaa'im weeye waa erayo lagu hadlayo salaad kastoo tukato casaa'imtanaad aqriyaysaa 70 mara 70 jeer ayaad erayadan aqriyaysaa erayadan waxaa ka mid ah aqsamtu bilqasami الsuryaaniy waxaan ku dhaaranayaa dhaar suryaani ah suryaani waa luqa maanta caalamka weli sii nool waana luqada diinta nasaaradu ay ku qoran tahay marka yunaaniga laga yimaado marka suryaani siiriyiinta ay isticmaali jirtay reer siiriya ayaa luqadooda waxa la odhan jiray suryaaniya waxaana maanta laga isticmaalaa ilaa iyo maxaan kula ninaway waa halkii nebiyullaahi yuunus uu ku dhashay gobolkaa aad baa looga isticmaalaa xalab iyana waa laga isticmaalaa turkigana qayb ka mida waa laga isticmaalaa oo luqadan waa lagaga hadlaa luqatu suryaaniya la yidhaahdaa waana 22 xaraf xuruufteedu luqatu suryaani waa 22 xaraf waxaanay u qorantaa abjad hawas xuti kaliman sacfas intaasay ku qorantaa waa 22 xaraf ayuu suryaanigu ka kooban yahay waana luqo inta badan ay isticmaalaan dadkan qora talaasimta iyo sixirka ay isticmaalaan wuxuu leeyahay markaa waxaan ku dhaartay luqata suryaani baan ku dhaartay calaa maliixati alqad waxaanan ku dhaaranayaa midda jooggeeda iyo qaabdhismeedkeeda iyo dherarkeedu uu aad u fiican yahay والمنظر ذات الحسن والجمال التي إذا أسبلت شعرها دلتها سترت ذاتها waxaan ku dhaaranayaa gabadha sifadaa leh ee joogeedu uu aad iyo aad u xiiso badan yahay araggeeduna qurux badan yahay timaha madaxeeda hadday hoos u sii daysana jidhkeedoo dhan uu wada qarin karo waida ibtasamat kharaja min famiha haddii ay muusooto ay ilkaha kala qaadana afkeeda uu ka soo baxayo kan yacni cumuud kan nuur tiir aad mooddo iftiin oo tiir oo kale aad mooddo taasaan anigu u dhaaranaya aqbilii limaxabbatii wa khidmatii waxaan dhaartaa kuugu maray inaad iigu timaaddo waan ku jeclahay inaad ii shaqaysana waan rabaa ayatuha alfaatilatu taa'ira midaadan haybadda le ee duushaay markaasuu tirinayaa ayna sawaaxibuki aaway kuwii kula socon jiray ka maymuuna wayaaquuta iyo magacyacaynkaasuu tirinayaa markuu asmaadaa tiriyo waa casaa'imta laga rabo in uu aqriyo ayaa waxay odhanayaan markaad 12 cisho salaad walba 70 jeer asmaadana aad u dhaarato ee aad dadkan dalbato ood shayaadiintan u yeedhato waxaad arki doontaa yadharu laka thucbaan cadiim mas baa kugu soo bixi doona meel cidlaad joogtaa
bini aadmi kama dhowa hayjad cidlaa mas aad iyo aad u weyn baa kugu soo baxaya waa maraad xidhiidhkii ilaahay oo dhan aad ka takhallustood cidlo taagan tahay wax kuu soo gurmadaana aanay jirin thucbaankaasi tala ku weydiin maayo qoortu iskaga kaa maraya ha ka baqanin markuu thucbaankaasi qoorta iskaga kaa duubo ha argagixin casaa'imta badi casaa'imtii aad u aqri markaad casaa'imta aad u aqrido uu kaa degaya waad waayeysaa markaad weydo casaa'imtiina aad kordhisay waxaa kugu soo baxayaa jamac dumara oo aad quruxdooda yaabto ama kaagayso ayaa kugu soo baxaya oo dharkay xidhan yihiin dhammaan wada xariir yihiin gacmahana dahab iyo lu'aali ku xidhan yacni waxaanay sitaan gabadh walbaaba dabaq uu dahab ka buuxo markaasaa waxay ku odhanayaan hablaha yagan mid ka dooro falaa tujibhunna taad u socotay maaha ha ajiibin kuwaas markaad ajiibi weydo yadhabna way iska tegi doonaan casaa'imtaadii iska wado akhiiran waxaa kuu iman doonta gabadh ayaa kuu iman doonta baydaa kaamilat alqad gabadh aad u cad oo jooggeedu uu dhammaystiran yahay kaannahaa julnaar aad ubax moodo julnaarku waxa weeye ubaxa geedkan la ydhaa rumaanka ayaa julnaar la ydhaa ubax baad moodaa guduudka wahiya tatabakhtar fii mashyiha si la yaab labay isu jajabinaysaa oo isu soo maldhakhinaysaa oo ay u soo tallaabsanaysaa oo timihiina way sii daysay xagga laabteeday u soo daysay oo waxay xidhan tahay nooc ashqaraarahoo dahab ah iyo lu'aali ayay xidhan tahay rubbiga nooc kasta kii cagaarka ah iyo kii casaaba way xidhan tahay markay intaasi way kula hadli doontaa mar allaaliya markay hadashana dareenkaagoo dhan baa kici doona waa hadal aad iyo aad iyo aad maliix u ah sawd aanad weligaa maqal baad kaaga soo yeedhaya dabeedna gacantaad kula haadi doontaa way iska kaa qabanaysaa waxay ku leedahay ii meherso marka meherkana waxaa samaynaya shayaadiintooda ayaa samaynaya ballan bay kula gelaysaa laakiin markay halkaa marayso meelaad ka soo noqoto male haddaad tidhaahdo waxay ku odhanaysaa waynu isguursanaynaa laakiin dumar bini'aadmiya inaad guursato ma dhici doonto anigaad ii gaar ahaanaysaa haddaad shardigaa ku gelayso waa sax haddii kalena maskii baa kuu jooga meelaad ka noqoto ma haysa adigaa cidlo isdhigay magaranaysaa marka waxay leedahay waxaan isku guursanaynaa inaanad naag dambe aanad guursanayn waad ku qasbantay marka sidaasay markaa ku wada xidhiidhayaan oo uu ku guursanayaa waa dariiq badan bay u sameeyaan laakiin waxa weeye adigaa marka dambe adigaa geed isku xidhaya aakhirkana iyagaa ku dilaya waxaan kitaab ka aqriyey nin dhallinyaro ah wuxuu yidhi guurkii baa igu adkaaday dumarka carabtana aad bay guurka u adkeeyeen ficlan oo dee kharash qiira qaadiya baa dhallinyaradii laga qaadaya suuqaan galay meelaha kutubaa lagu iibiyo deedna waxaan soo iibsaday kutubtan taxdiir alarwaax wa muluuk uljaan wixii baan aqriyey dabadeedna wixii aan rabay baa ii yimi gabadhii waanu heshiinay waxay tidhi weligaa ha guursanin weligii adiga mooye cid kala guursan maayo sidii baa lagu heshiiyey inanku markaa shirkad buu u shaqeeyaa mudduu shirkadda u shaqaynayay gabadh baa markaa iyana shirkadda ka shaqaysa dhallinyaro ah gabadhii bay wada hadleen ballankiina uu iska ilaabay ballankii uu la galay jiniyaddana uu iska ilaabay inantii waxay ku heshiiyeen bini aadmiga ahayd inay isguursadaan berri oo kale markii meherku dhaci lahaa ee caawa uu gurigiisii ku hoyday ninkii oo midee lagu jeexjeexay guriga cidlo ahaa ninkii oo midee lagu jeexjeexay
وميدة هي اللوجو يمي محو جورسن با آخر بوتجي مركا بلن كاسي هرت كل جليان مركا وجوه الرئيسنا وحي الربان إني كوجو أودان مال عدلا مركا بين آدم كادح ساران ومال خالي كل تجان أيا وحا كوجو إيماني مركا قاركود وحي كورانيان وحا كو إيمان دونا وحمدو وأود بدن وقوة بدن باكو إيمانيا وجيس لو شيطان نفسه أرجحين عزائم هذا إسكواده ساسا مركا هرتا كاسي وكو حرقليا أبد كيسنا مقور سنكرو بنا آدمي نوع لباد باج يعني صدحات باجرة ويكو اتصالان بنا آدمية إيو ثقل ككلا إيو دمر كود وحانا تاسما غالبا وحاجرة سحر ولياشا قار محان كنا دلالين كأ بين الجن والإنس سحر ولياشا برد دلالين باجرة oo isla doonta bina aadmiga jinka iyo insiga ninkan sixroolihi wuxuu haystaa guutadhan oo shayaadiin abu ku adeegsadaa lisixrihi sixirkiisa darteed buu ugu adeegsadaa wuxuuna awood u leeyahay gabadh kasto jinniyada cidii ka soo dalbatay inuu u guurin karo ama uu ku xidhi karo oo raacin karo marka غالبا بلاد العرب bay ka dhacdaa alxamdulillah ma sha Allah inagu malihin haddaynu yeelan lahayna digniinta idiin soo horreyso aniga idinka warramaya oo u malayn maayo nina inuu maxaan ku raahdaa qabis gelinayo shaydaanka ayaa loo yeedhayaa waxaana u yeedhaya sixiroolahaasu wuxuu samaynayaa labadii ruux buu isku xidhayaa isagaana dalbaya gabadha ninkan isaga waxba dalban maaya laakiin shuruuddaa la kala saxeexanaya saasuu markaa isugu xidhaya labadii ruux saddexdaa qaab way ku itisaalaan jinka iyo insigu thaqalaynku hadday saar iyo boorana iyo minkis midkaa doonta aad tidhaahdo haddii qofku isagu uu gaar ahaantiisa oo intuu casaa'imta iyo talaasimta iyo waxa iyo sixirkaa isticmaalo uu bannaankaa ugu baxo iyo hadduu sixiroolo dilaal ah uu la itisaalo saddexdaa qaybood horta way ku kulmi karaan qayb kalaa jirta oo bini aadmigu uu fursad siiyo in shayaadiintu ay kula itisaalaan bini aadmiga xaggiisay ka timaadaa taasuna waxa weeye waa marka qofka muslimka ahi ama qofka bini aadmiga ahi xaalatul jimaaca markuu samaynayo adkaartii rasuulku bara calayhi salaatu wasalaam markuu ka wahsado ama aanu isticmaalin bismillaah allahumma jannibna ash-shaytaana wajannib ash-shaytaana ما رزقتنا هدي مركا أذكارتا قفك من آدمي وكتغو مسلم بها أهاده وحاد عده إن شيطانك سوف رجليو حالة الفراش كوده